munaasabadan ay ku qalin jabinayeen in ka badan 40 arday oo dhamaysatay maadooyinka computer science ee accountiga kana baxday maxadka Moi Institute of Technology ayaa waxa lagu qabtay xaafadda Islii magaalada Nairobi waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi xildhibaanka deegaanka Kamankunji Yusuf Xasan Cabdi macallimiin waalidiin ardayda wax ka barata maxadkaasi iyo marti sharaf kale goobta lagu casuumay ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay maamulaha maxadkaasi Maxamed Aadan oo ardayda qalin jabinaysa ku dhiirigeliyay inaanay halkaasi kaga hadhin waxbarashadu ay sii wataan waxa sidoo kale halkaas ka hadlay qaar kamid ah ardayda qalin jabinaysay dabcan markii graduation-ka noocan kale ku dhamaado micnaheedu maaha inaad qalin jabisay sida anaga waxaan idhahnaa qalin la jabinay ma jira qalinka uu soconaya ma fahanti khadda gadaal ugu shubeysa insha Allah marka waa inaad jaamacadaha siiyaataan walaalayaal saa u socotaanba waa xafladii afraad taamcineedu marka waxay tahay waxaan jirsanay 4 sano in fact 5 sano hadda taxayra nooga dhiman marka intaas aan jirnay waxaan mar walba ku soo dareynay barnaamijyo cusub oo aan ugu talagalnay community-geena xaafadan degan Islii iyo mataqaanaa iyo meel kaleba sanadkan waxa farxad noo ah inaan soo kordhinay qaybta high school-ka haduu Ilaahay yiraahdo taasoo aan rabno inaan mataqaanaa aan ku bixino shahaadooyinka IGCSE iyo KCSE kulli aan ku bixino haduu Ilaahay yiraahdo. In all seriousness, today is a milestone of each of us and our families, and it is our beloved loved ones that we owe our deepest thanks. After today, we leave the protection of the college, the community, of our teachers. Dear teachers, thanks for making us to learn. Thanks for not making us to learn the way you wanted to teach. xildhibaanka deegaanka Kamankunji Yusuf Xasan Cabdi halkaas ka hadlay ayaa wuxuu hambalyeeyay ardayda qalin jabinaysay waxa sidoo kale halkaas ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta lagu casuumay xafladaasi waxaan leeyahay guriyo hawsha fiican aad soo qabateen inaad ku guuleysateen waxbarashadiina oo aad soo dhamaysteen qaybihii ugu dambeeyay ee aad ka gasheen institute-ka Moi la yiraahdo runtina aqoontu waa qalabka ama se hubka ugu qiimo badan oo qofku ku siin karo ama se adigu aad gacantaada ku qaadan karto gabdhaha waxa bartaan gabdhaha wax barteen gabdhaha kale u sheega waxa bartaan maati iyo diiniba gabadha markay wax barato kaalin weyn bay gali dawlad kasta tagta Mareykan hata u istaagtid waad helaysaa because dad aad u fiican baan nahay dabeecadda kale uma iska yaraxuna ma ogi taaxun baa yara qabnaa moori laakiin bulshada kale waa ka fiican inta adduunka ku faaftay ugu dambeyntii waxa shahaadooyin la guddoonsiiyay ardaydii qalin jabinaysay Cabdirashiid Obsiye on Cable TV Nairobi.